ujeedadiisuna yahay bal in qiimeyn lagu sameeyo sugidda amniga caasimadda kadibna sidii golaha wasiirada iyo degmooyinkii qorshihii la sameeyey u howlgeli lahaa wareeg waxaan ka mahad celinaynaa waqtigiina qaaliga kusoo dhawaada dowladda hoose xamar xaruntan waa xarun taariikh leh waa xaruntii waagii talyaaniga uga talin jiray gobolkan kadibna waa aqalkii ugu horreeyay calanka laga taago 1970kii saa la socotaan golaha wasiirada sharafta leh sanadkii hore ayay ahayd May markii xasilinta caasimadda aan ka soo saarteen qaraarkaas ku saabsanaa in mudnaan gaara la siiyo sugidda amniga caasimadda qorshahaas isaga ahaa ayaa haddana waxaa lagu sameeyey laba kacleyn bishii April aan soo dhaaftay taasoo iyadana aan si istiraatiijiyad ah u wajahnay arrimaha amniga muddadii 4 bilood ee maamulka gobolka aan joognayna annaga waxaan diiradda saarnay sugidda amniga caasimadda si istiraatiijiyad ah oo ka duwan siyaabihii hore waxaan garowsanay ahmiyadda bulshada inay kaalin ka qaataan amniga sugiddiisa waxaan sameynay xiriir wanaagsan iyo wada shaqeyn dhab ah hay'adaha amniga oo aan aad iyo aad uga mahad celinayo oo ilaa heer gobol heer degmo ilaa iyo heer wax aan gaarsiinay sidoo kale waxaan dhaqan gelinay barnaamijkii darisaynta oo sahlay isagana in bulshada iyo maamulada degmooyinka isku xirmaan intaas marnaba waxaan la iloobi karin doorka hogaamineed ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda oo ahmiyad gaar ah siiyay sugidda amniga sidoo kale waxaan u mahad celinaynaa golaha wasiirada oo ayagana dareemay in ay rabaan inay kaalin ka qaataan sugidda amniga oo aysan wasaaradooda kaliya ku ekaanin oo ay shacabka dhex galaan bacdama dowladda shacabka tahay maamulka gobolkan shacabka yahay in shacabka lala qaybsado sugidda amniga waxaa ilaahay mahadiisa ah qorshihii 90 casho ah ra'iisul wasaaruhu amray inuu si dardar ku socdo waxaa warbixin laga siin doonaa guddigii loo xil saaray sugidda amniga caasimadda Sama si ay noogu sheegaan wixii qabsoomay waxyaalaha caqabadaha jira iyo sidii aan halkan uga wada tallaabsan lahayn u gaari lahayn hadafka aan wada leenahay oo ah caasimad amni ah caasimad shacabka Soomaaliyeed oo dhan isku haleyn karo caasimad la tartami karta caasimadaha adduunka intaas ka sokow soo dhaweynta baan lahayn annaga waan soo dhaweynaynaa waxaan jeclahay inaan microphone ka siino guddigii loo xil saaray arrimaha sugidda amniga bal inay tafaasiil fiican nasiyaan kadibna aan bilaawno wixii markaas dood iyo discussion waa mahadsantihiin